كبروا كبروا كنا صار بلشة تيفي boqor maxamed jaamac oo ah afayeenka golaha dhaqanka ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin dib u dhiska ciidamada dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay inay meel wanaagsan marayaan arrimaha ku saabsan dib u dhiska ciidamada oo dawladda Soomaaliya doonayso in lagu sameeyo bulshada TV aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxa jirta in la waday ama la qorsheynayay in la helo la isu keeno ciidamo qaran oo mitila jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya burburkii ciidamada Soomaaliya kadib anagoo arintaas maaragtay ka duulayna ama ka horba waxaan maaragtay diyaarinay 5,000 ilaa 6,000 oo ciidana oo ka soo jeeda jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo jeeda ama maamulka Soomaaliland ka soo jeeda ama reer Soomaaliland oo ka mid noqonaya ciidamada qaran dawladda dhexe federaalka ay yeelanayso ciidankaas aan sheegay tiradiisa hadda waa diyaar liiskooduna waa diyaar waxaan u gudbin doonaa insha Allah wasiirka gaashaandhigga iyo madaxda sare dawladda xilliga maaragtay la abaabulayna insha Allah taala waa waqti dhow baan rajaynaynaa maaragtay inuu noqdo waa hawl hadda soo dhamaatay oo gabagaba ku dhow oo diyaar ah dhinaca kale boqorka ayaa waxa uu ka hadlay guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo soo bandhigay tirada guud ee codbixiyaasha waxaana ugu baaqay in arrinkaas wax laga bedelo isla markaana ay saameyn ku yeelan karto arrimaha ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland doorashooyin baa hadda dhawaan la filayaa inay ka dhacaan doorashooyinkaas runtii Soomaaliland waxay ku faani jireen inay maaragtay nidaam dimuqraadi ay maaragtay ku soo socdeen oo ay wax ku dooran jireen runtii arrin wanaagsan bay ahayd laakiin waxa runtii maaragtay nasiib darro ah oo runtii warwarkeeda leh arinta hadda maaragtay sida maaragtay wax u socdaan ama maaragtay sida siyaasiyiinta maaragtay hadda qaarkood ee xisbiyada siba xisbi xukuumiga oo ay maaragtay wax u kaambay gareynayaan oo maaragtay arrin maaragtay qabyaalad maaragtay ku dhisan waxa runtii aan aad uga warwarsanahay shirka qabsoomay burco lagu qabtay oo ay ka hadleen madaxdii dhaqanka ugu sareysay beelaha Soomaaliland qaar ka mid ah oo ay si beelaysan oo qaawan uga hadleen inay maaragtay cid maaragtay cod ka siinayaan ama ay cod siinayaan arintaas oo aan hore loogu soo maaragtay arag maaragtay Soomaaliland doorashooyinkooda hore jirin marka arinta runtii waa arin maaragtay warwarkeeda leh waana arin runtii nasiib darro ah waxaana maaragtay u soo jeedin lahaa madaxda dhaqanka oo waliba madaxdii dhaqanka u sareysay maaragtay beelahaas burco iyo maaragtay Hargeysa in arintaas maaragtay dib looga noqdo booliisna maaragtay dadka laga siiyo madaxda dhaqankana sidii hore looga yaqaanay in asxaabta ay dhexdhexaad u noqdaan inay maaragtay dhexdhexaadkooda ay noqdaan haddii berito la isqabto dawaacidii loo noqonayay marjaca ahayd madaxda dhaqanka golaha guurtida iyo culimada Soomaaliland maaragtay caadada wahayd waa halkii loo noqonayay haddii maanta iyaga fagaaraha la soo taago oo ay yiraahdaan maaragtay xisbiga ka beesha hadaanu xisbigaas aan taageerina ama beesha reer hadaanu nahay sidaas aan ku heshiinay waxa weeyaan waa arrin maaragtay keeni karta Soomaaliland ku keeni karta maaragtay khatar iyo burbur waaran ka digayaa hadalka ka soo baxay afayeenka golaha dhaqanka Soomaaliland ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli guddiga doorashada Soomaaliland ay soo bandhigeen tirada guud ee codbixiyaasha maxamed Saliid Axmed bulsho TV